waxaan ganacsatada Somaliland oo sidii la sheegay aan halkan ku dhamayn laakiin intii matalaysay ay maanta halkan joogto rugti ganacsiga iyo ganacsatadiiba doorka ay lahaayeen ganacsatada Somaliland ereyo kooban oo halkan ka ilaahdo kuma dhamayn karo ganacsatadu taariikhda Somaliland way ku suntan yihiin hadday tahay halgankii hadday tahay dowladdiskii hadday tahay nabadayntii hadday tahay shirarkii nabadaynta hadday tahay maalgashiga hadday tahay shaqo abuur mararka qaarkoodna waxay qaadanayeen doorkii xukuumaddu qaadan lahayd waayo mararka qaarkood bangiyo maynaan lahayn waxay shacbiga tuseen kalsooni waxay noqdeen waddo noloshoodu ku xidhan tahay hadday tahay lacag isu diris iyo hadday tahay dabadhisba kaalin kasta oo ummaddu u baahato way ka qayb qaadanayeen ilaa maanta waxaa ugu dambeeyey dabkii gubtay bacadlayaashii maalintii dhaweyto hadday tahay abaaro hadday tahay duufaano sidii halkan laga sheegay hadday tahay social responsibility oo dadku wax walba way ula tagaan ganacsatada haddii waddo la dhisayo haddii dhakhtar la dhisayo haddii jaamacad la dhisayo haddii iskuul la dhisayo bulshada wax kasta dee waa qayb bay ka yihiin runtii waa uga mahadnaqaynaa waxaan ugu bishaaraynayaa ganacsatada inta waaweyn iyo inta yaryar inta dhexeba in xukuumadda wadajir iyo waxqabad ay tahay xukuumad la saaxiiba ama la saaxiibi doonto ganacsatada haddii la yidhaahdo waxaanu jecel lahay wixii talaana inaanu weydiino wixii dalka lagu horumarinayo kala tashanno meelaha aan isleeyahay weli way furan yihiin ganacsatada maanta u baahan inaynu korino waxaa ka mid a warshadaynta dalkeenna marka la eego wax walba waynu soo dhoofsannaa xitaa malaa findhicilka aynu ku findhicilanno waynu soo dhoofsannaa marka waxaynu u baahan nahay warshado yaryar inaynu ku bilowno kuwa dhexe iyo kuwa weynba waxaa is leeyahay maanta dhaqaalihii lagu dhisi lahaa warshadahaas waddanka wuu yaallaa ganacsataduna way haystaa inaynu soo shaqo abuurna way noqonaysaa waxaa ka mid a inaynu hormarino dalxiiska oo maanta ah waxyaabaha ugu badan ee dhaqaalaha laga helo dunida oo infrastructurekiisa haddii la sameeyo dadku way kusoo dhiirinayaan bad baynu leenahay 850 kilomitera jasiiradaynu leenahay buuraynu leenahay meelo badanoo dalxiis ku wanaagsan baynu leenahay taariikh gabowday baynu leenahay oo guuna marka tourismku taariikhdana waa loo yimaadaa dee meelaha fiicanna waa loo yimaadaa intiiba waynu leenahay masaajido laba qiblele baynu leenahay oo tii nebiga ka horreysay loo tukanayo qudus iyo waa wadamada islaamka ku walba inta badan waxaan uga mahadnaqaynaa ganacsatada maalgashiga ay sameeyeen ama technology ha noqdo ama isgaarsiin ha noqdo ama baanan ha noqdo waxaan uga mahadnaqayaa inay maadaama dee dowladdu bangigeedii ganacsiga aanu jirin inaad ganacsatada dhiirigelisaan oo aada amaah siisaan
dunida ma jiro wax iska dhismi karaa adduunka oo dhammi amaah buu ku socdaa marka taana waa ku bogaadinaya waana ku dhiirinayaa taasi waxay gacan kor u soo qaadaysaa ganacsatadeenna yaryar iyo kuwa dhexba waxaan ku darayaa un maanta jamaal baanu saragnay guddoomiyaha rugta ganacsiga oo la yara kaftamo waxaan ku yidhi muddo kordhinii dowladda cusub way joojisay marka waxaan filayaa waxoogaa uu mala yaro muddo dhaaf yahay rugta ganacsiga doorashadiisa waxaan runtii ku bogaadinayaa ganacsatada inay aada iyo aad mar kasta noogu dhiga nugul yihiin waxaanan rajaynayaa sidaan sheegay xukuumad la saaxiiba ganacsatadaanu nahay wax kasta waa ka wada tashan karnaa waxaanu ku dadaalaynaa in ganacsigeennuna uu noqdo mid la tartami karaa waddamada inagu xeeran oo dekeddeenu noqon karto mid la tartanta dekedaha kale inagu xeeran marka taana waa ku dadaalaynaa oo hadday xitaa kalifayso mararka qaarkood in cashuurta haddaynu ka badan nahay dee dalalkani jaarka nahay waynu dib baynu eegi doonaa haddii alla yidhaahdo aada iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ganacsatada dee intaan jooginna fariintaa mahadnaqa ah waa wada leedihiina waan soo gaadhsiiyey